qaali weeye quursanina ilaah qowlkiisa weeyaane dhaabugu qaan. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالي الشرفت لك سود وادا كلتون صحن صحب بإذن الله الرحمن كعم فرن قلب فرن إلى هيدن كيسا كسود وادا آدي يعني دين سو ودا دوين يا دمانتين با الصحابة قروح دبضان إلى تشوكتينا إي صوتي مها إي مهادنا آدي هاد بندين سو دوين يا ولا لي هور إلى تشوغينا إذن كان إلى هيدن حفتيو آدي يعني دين ودا السلام يا كل جيمبا aad baa mar idin salaamaya mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka tahiyatul islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta insha allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago haddii allah awood li karaali noqdo nafaqo timaha oo aad guriga ku dhex samaysanaysid kijada inta ku taala aad insha allah aad ka sameynaysid ilaahay idankiisa. hadda ka hor ayaan sameeyay YouTube channel hore oo aan lahaan jiray oo aan xiray 2 sano ka hor baan soo galiyay wuxuuna ahaa fiidiyowgii ugu horeeyay aan markaas ku bilaabay. marka haddana waxaan halkan haddana ku soo duub maadaama aan maaragtay alaabtan aan ka faa'iiday aad iyo aadna ay anfacday idinkana sidoo kale ayaan jeclaystay insha allah inaan idin wadaago. timaheenana haddaynan gacanta ku haynin oo markasta maaragtay sida wejiga ama maaragtay jidhkeena kale aynu u ilaalino ayay timahana sidoo kale u baahan yihiin nafaqo u baahan yihiin in laga shaqeeyo si fiican loo shanleeyo si fiican loo dhaqo si fiican maaragtay loo duuduubo yacni loo garangariyo sidii markii wadankeena aan joogno kale timaha gabdhuhu u duuduuban jireen. isbuuciiba haddaad hal mar saa ku samaysid dee markasta oo maaragtay aad jaanisa shidna iska shanlaysatid timahaagu qurux bay kuu noqonayaan. badanaa waxaa qurbaha lagu arkaa timihii oo xiirmay bidaara baa igu dhacday timihii way irifmayaan timaha way burburayaan timahayga isma leeka waxaasoo dhan ayaan dadkeena ka maqlaa. marka runtii aan waxaan aaminsanahay haddaan timaha gacanta lagu haynin inay dayacmayaan wax kastana waa qurxi waa far ku hayn. marka maasha allah waxaan soo qaatay 2 xabo oo afakaadho ah. afakaadhada xoogaa way yara raagtay way yara aad bay u bislaad dhaaftay laakiin maasha allah waa dhib ma lahan waa aad bay u fiican tahay. iyo xabad moos oo bisil baan soo qaatay. dhinacana waxa weeye malab 3 malqacdood oo malab ah iyo 2 malqacdood oo maaragtay si fiican u buuxa oo ah yogurtka plain yogurtka ama ciirta qofba soo yaqaano. basal baan soo qaatay 2 xabo basasha cas ah. marka basasha biyo diirkeedii baan adigu wax ka yar 5 minutes baan soo karkariyay oo biyo ku soo karkariyay ka bacdina waan ka soo miirtay. waxaan iyada coconut oil ka gadaal insha allah weeyaan. waxa kale oo iyadana meesha igu jirta 2 xabo 5 xabo oo toon ah toonta caadiga waata meesha mishiinka galaaska agtiisa ii taala insha allah markaan ku gurayana waad arki doontaan haddii ilaahay raali ka noqdo. marka waxaan sameynayaa intaas baan isla shiidaya haddii ilaahay raali ka noqdo waa basashaas waa basasha aad basasha iyo toonta mid kasta inta hadda alaabtaala mid kasta wuxuu wataa maaragtay nimcadiisa. toontu aad bay u fiican tahay iyadana wax kasta toontu waa ka daawo. basasha laftirkeedu aad bay u fiican tahay aniga kolley ma koobi karo yacni waxyaalaha ay basashu tarto especially basasha cas aad iyo aad bay u fiican tahay. marka basashu aad bay muhiim u tahay maaragtay inaad cuntid iyo inaad maaragtay timaha marsatidba aad bay ugu fiican tahay. marka hadda waxaan gacanta ku taagtaagaya waa alaabadii maaragtay yacni laakiin dib ma laha waama soo sharaxay inay maaragtay xabad moos oo si fiican u bislaatay afakaadhadu aad bay u fiican tahay. hadda mararka badan waxaad arki doontaan gacmahaygaan marinaya way liqaysaa yacni wax maaragtay subxaan allah wuxuu markuu jirka galo uusan ka taagtaagnaanina uu jirka galo aad iyo aad buu fiican yahay. marka aad bay u fiican tahay kijada alaabta taala anigu bariga hore waxaan aaminsanaa wejigana in la marin karo maartay sida afakaadhada iyo mooska iyo kale laakiin insha allah mar kale aan ka hadlayaa alaabta cuntada wejiga la mariyo aad iyo aad bay u xuntahay riski badan baa ku jira mabana loogu talagelin wejiga wax maartay cuntaa in la mariyo in la cuno mooyaane. laakiin timihii waxa weeyaan waa wax nafaqadii xitaa jirkiga way galaysaa oo maaragtay madaxii wuxuu leeyahay daldaloolkii timaha kasoo baxayaan wixii way kuu galaysaa timo qurux
badan oo maasha Allah bay ku dhigaysaa timahaaga waxyaalaha ay ku sameyn doontana insha Allah waa ku sii dari doonaa yacni waxtarka ay timaha u leedahay haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan sameeyaa oo kale coconut oil baan ku daraa ama maaragtay saliidda qumbaha qofba sida u yaqaano haddii kale olive oil baa ku daraysaa ama saliid saytuun hadba saa u taqaanid labadaas saliidood baa ku daraysaa marka waxaan sameeyaa badanaaba hadda saliidda waa iska soo dhigtay laakiin markaan timaha marinayo ayaan saliidda ku darayaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan sababtaan ugu darayana waxa weeye saliid hadda markaan matalan barabo inaan marsado timaha wax yar waxa laga yaabaa inaan kululeeyo marka saliidda inay dabka ka gasho inta badan ma fiicna oo maaragtay saliidda waxaa la dhahaa nafaqadii baa ka dhimanaysa haddii dabka gasho kaliya warshadu unbaa waxay la tahay dabgelin karta saliidda warshad unbaa saliid lagu sameyn karayaa baan isleeyahay marka mashiinkaasaan ku shiidanaya mashiinka badanaaba ka aan biyaha cabitaanka ku shiito iyo ka aan maaragtay waxaan alaabadan ku shiito badanaaba laba kala nooc baan ka dhigaa yacni kaa waxaan ku shiitaa matalan basbaaska waxaan timahan marsanayo waxaan ku shiitaa canjeelada markaan canjeelo sameynayo marka matalan canjeelo raba inaan reerka u sameeyo oo kale baan ku shiidaa laakiin mashiinkan cabitaanada ku shiitaa iskama taabtaan alaabta iyo waxaas kagama shiishiido maasha Allah tabaarakallah toonta xaqiiqatan toonta de nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee ayaa yiri haddaan sheegi lahaa toonta waxtarkeeda waxaan ka baqayaa in ay dadka yacni faqarada ah ay gadan kari waayaan hadda dadkii aan maarta muslimka in ba xitaa waxay ogaadeen toonta naf waxtarkeeda iyo faa'iidadeeda bay ogaadeen oo toonta way qaali weeyaan aad bay toonta qaali tahay marka toonta yacni cajiib weeyaan waa geed aad u cajiiba ilaahay subxaana watacaalana barakeeye iyadoo geed kastaba yacni uu qiimihiisa leeyahay ilaahay subxaana watacaalana barakadiisa iyo nafaqadiisa saaray khayrkiisa haddana toonta de waad ogtihiin xabata soodaha iyo toonta iyo inay ilaab khatar yihiin iyo malabka iyo farmashigii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee orgaaniga ahaa weeye marka waxaan sameynayaa aadna iga raali ahaada fiidiyoyada dhaadheer waa igu dhib xoogaa waan xiiqaa maaqaani waxay tahay ma barasho la-aantaba waxooga waan ku xiiqaa waxyar marka insha Allah dadka qaar waxay sameeyaan waana gabadh hindiyada ah mise Chinese bay ahay dadkaas maarta aad uga shaqeeya timaha baan kasoo arkay hadda ka hor markii aan baranayay bahashatan iyada waxay sameynaysaa gabadha dadku badanaa way qariyaan meesha wax kasoo helaa laakiin gabadh hindiina hadina Chinese ay labada mid bay ahayd waxay ku daraysay liindhanaan laakiin anigu liindhanaanta ma ku darayo oo liindhanaanta waxay leedahay yacni acid bay leedahay timaha madaxa inay qarqarxisaan ka baqay marka ma ku darinin toonta iyada laftirkeeda khatara marka caruurta looma marin karo laana adiga hagi weynaaba sad ku xamishaa mararka qaar ayaamaha hore kugu dhib noqonaysaa xoogaa madaxa xoqaya laakiin caruurta waxaa la dhahaa gabadhaas waxay dhahaysay in qofka 18 sano wax ka yar hayaan loo marinin aniga marka waxaan sameynayaa timahayga waxaan ku daynayaa maadaama ay basal kulul iyo toon kulul ku jiraan 45 minutes baan ku daynayaa haddii Ilaahay subxaana watacaala idmo marka waxaan sameeyaa laba haaf baan ka kala dhigtaa intana hadda way badanaysaa markaan shiido waxaan ka kala dhigayaa laba qaybood mid markaasaan marsanayaa timaha markaan mariyo timahoo shanlaysan baa la mariyaa korka salka inta lagaga bilaabo caarada u sareysa timaha la gaarsiiyaa lagu masaajeeyaa before aadan sameynayna timaha waa la shanleeyaa timaha markaad shanlaysid way kuu fududaanaysaa inaad wax marisid kabacdi timi markaad shanlaysid haddaad tahay gabadh dhexdu usii xidhan tahayna waxaa samaysaa duuduub garingiri timiinta jexjexida garingiri iyagoo dhooqo oo wixii marsan haddaan rabinin oo iska xoogaas leedahay waa iska caajisna anigaba saasaan sameeyaa waan iska mariyaa timihii oo ii shanlaysan si fiican baan u mariyaa u dhexgeliyaa ilaa tinta meeshay kasoo baxdo ilaa caaradaan mariyaa waxaan sameeyaa bacda cuntada afka lagaga xidho baan saa ugu garingiriyaa madaxayga saasaan ugu garingiriyaa kabacdi masar baan dhab ku siistaa waxaan marsanahay cid i ogi ma jirto لأن وحبي قد دائمايان وحي أعظم ما تشلعنا وحي جمد أيان مصر بان حدنا هاي لي ما دريميو ورطة إذا دعدنا سنكي صو صار ما يصو حاجة مرها ويرا ورا ساعة عدنا يسروان ما يصو مركا 45 minute مركانو دايو حتى على بس ساعة قياس تولو دين كراحة دي أد مركاس معركة إسلاد هاي مثلا حاول كلاتك توكله أما ده الشقير يقولك الشقير يسهاو شوكولاتك تو
waad ku dayn kartaa ilaa 2 saacadood laakiin anigu waxaan sameeyaa usually waxaan sameeyaa 45 minutes wajigana wax yar oo maaragtay baan iska qastaa matalan ba qasil yar ya maaragtay face bag yar baa wajigana dhab ku siistaa inta hawsheedan iska qabsadaa 45 minutes kaasana maaragtay timerkan ku buuxsadaa maasha Allah markaan inta ku siiyo timihii baan ka dhaqaa timaha markaa ka dhaqaysid waxa laga yaabaa inay ur yar aad dareentid marka waxa samaysaa baking soda baad soo qaadaysaa 1 malqacad oo baking soda ah baad shaambada aad timaha ku dhaqaysid baad iyo baking sodahaas oo malqacada baad iskula qasaysaa baaquli yar ka bacdi waad iskula dhaqaysaa waad ku dhaqaysaa walaalayaal waxaan ku codsanayaa timaha markaa dhaqaysaan aniga ka badana bathkan ku dhaqdaa timaha intaan kaarbad yar dhulka dhigto jilbaha saarto baan madaxa la galaa ka bacdi timaha horaan u dhaqaa timaha salkan ka soo bilaaba halka qadaadka horaan u soo dhaqaa shaawarka hadaa galaysid xitaa timahaaga gooni u dhaq soo foorarso timaha dhaq timaha hore u soo dhaq laakiin kadaan timaha kor u dhaqan halka dhakada kaga bilowna ama fooda timihii way go'ayaan oo gadaal u dhaqno timihii way go'ayaan bidaar baad yeelanaysaa timihii way ka durkayaan wajiga badanaana timaha markaa duuduubaysaan insha Allah wajiga fooda halka ku soo duuduuba sidii bariga hore fooda yar la jaran jiray fooda yar jarta hadaa rabtaan timahaaga marnaba gadaal intaad u xidhid saacadana waa yara tusaya ka raali ahaada maasha Allah saacadahan aad u jecelahay marka xoogaa hadaan idin soo yaaya ka raali ahaada waqti la kaftamayaa marka maasha Allah timaha saas u dhaqa tuwaalka marka timaha ku qalashinaysid ama shukumaanka hore u soo duub timaha hore u soo foorori saa ugu soo duub timihii marka mar kasta timahaaga hore u soo qabo hore u soo dhaq hore u soo maarta duuduubo halka fooda wajiga halka ka sareysa ku duub timihii ku garingari maasha Allah tabarakallah timahana aad ina duuduubtin garingarisiin oo ku dadaala xitaa hadii qofka aanu fahmin marba intu sayaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo laakiin waxa gabdhuhu badanaa way fahmi doonaan Ilaahay idinkiisa timiheenan gacanta ku hayno hadaa timo badan leedahay 2 maalmood ka kala dhigo hadii timahaagu yar yihiin intii ka badan ka kala dhigo hadii Ilaahay yiraahdo aniga insha Allah marka 2 maalmood baan ka kala dhiganaya in aan marka marsanayo iyo inaan dhalo intaan ku shubto freezerka barafka aan gashanayo marka Ilaahay idinkiisa maalinta aan marinayo ayaa ma aragtay waan ku yara kululaysanayaa markasto aan marinayana waxaan saliida coconut oilka ayaan ilaa 3 malqacdood kula daraya oo intaan wax yar qandac biyo ku dhex geliyo baan korka kaga daraya hadii Ilaahay yiraahdo maasha Allah tabarakallah timahaaga nafaqaysinaysa anigu waan necbahay inaan qof wax ka gato waxaan jeclahay inaan anigu gacantayda ku sameesto ma xumeena dadkaaga wax ka gadatid laakiin gacantayda inaan ku sameystaan jecelahay gacantaada biyo looga dhargaa waxa kale oo jirta timahaaga waxaad ka arki doontaa timaha markaad gacanta saa u dhexgelisid halka gacanta hadda timaha shalaysid timahaaga gacanta dhexgelisid gacanta xogaa wax moosan istaag noqonayso laakiin marka timihii gacanta saa u dhexgelisid gacantaada weyneen istaagi farahaaga istaagi socdaan all the way ay maartay meesha u dambaysa inay socdaan xataa waa dareemi kartaa gacanta ku dar hadda xitaa xaaji leedahay xaajigaaga uu gacanta dhexgeliyo gacantaadu maasha Allah isma taagayso gacantu way soconaysaa kaftanaan ku yara dare marka sidaas ayaan waxtar u tahay quruxu tahay timahana sidaynu wajiga u ilaalino timahana u ilaalino inta ay rada saacadan tusayana maartay saacada way shidan tahay iga raali ahaada coconut oil kana aad bay fiican xitaa gacmaha markaan marinayay wixii gacmaha iga gaargaaray waxa moosa gacantu inay liqayso marka maasha Allah tabarakallah alaabti wata salabada qaybood baan ka kala dhigtay inta freezerka barafkan gaxshanaya hadii Ilaahay yiraahdo 2 week ugu badnaan 3 week bay oo la hadii Ilaahay raali ka noqdo intaasna waan hadeeran ismarinaya maasha Allah dhukhtima ay ku siinaya fiidiyogu iga dhamaan rabaa waa soo dadaalay maasha Allah tabarakallah dhamaantiin farxad barwaaqo bashbash cimri dheer cibaado suban baan rajaynayaa soo wada dhawaada asxaabaha kalena u sii share garay Ilaahay idinkiisa dhamaantiin waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu isku soo noqosho wanaagsan oo xiiso leh nabadgelyo عمر فاروق درجة سارة الله دارها جنة ودحده الدهقاء وقهبتي حور
العاها انتي حرمهنا اللاسي وحوهوتكي نبيك كعاها بو حرير دوكسادو الله